نبان ذيك الشيكين عجيبة ومعاصرة نكا وحلا إلى هذا محمد توفيق ابن أحمد ومصري وإنجنير وزمن كان النور نحي كن سجال بقول سجال يلا باتنكي إلا كن سجال بقول سجال يسطن في طبعا سنة أيا الله قدر سكولرشيب وحبرشة سويسرلاند بوتي ninkaas ka masriga injineerka ah wax soo baranaya way maalin baa waxaan ku arkay inuu gidaarka doctor magaciisa la oran jiray Robley oo wadanka caan ka ah ayaa wuxuu yiri lecture baan jeedinayaa magaciibu soo dajiyay waxaan idin ka sheekeynayaa inuu Masar iyo Falastiin muxaadaro saas magaceeda haabu magaciiba ay soo jiitay buu magaciiba ay soo jiitay tag baan isiri buu سويسرلاند أفضل بدن بالغة هذلا أف جرمن بالغة هذلا أف فرنسيس بالغة هذلا قيبة أف إنجليش كو هذا شيء وماذا بدن بإسلام نو نكان قوليك أف جرمن كو هدي يقول جوبي أف جرمن كي يقول حلو بدن حلو معه وان فرنسيس بيقول لكتر كي لو تكيج بالغة هذلا يا مصر يا فلسطين نكى وحب بلا بيقول سووا ستا فلاشيا ذا الجدار كلام نفطو ها داتنا باوربوينتيga ayuu wataa buu sawirro yaa buu markaas wuxuu yiri wadanka ka imid ee Masar la yiraahdo yiri dumarka way gumaystaan meher wax la yiraahdo bixiyaano gabdhaha way iibsadaan meherkii wuxuu ka dhigay wax la iibsanayo 10 gini iyo 20 gini iyo 30 gini baad gabadh ku iibsanaysaa ayaa maxay la yiri waa wadanada adduunka ugu uska gabadan buu yiri waxay caabudaan buu yiri nin carab ahaayo Muhammad la oran jiray ayay caabudaan ayuu yiri anu waan fadhiyaa buu yiri Muhammad ninkan aan idinka sheekeynay Maxamed Tawfiiq ibn Ahmed af aan ku hadlaan garan laayay afkii aad uma aqaano wuxuu sheegayna waan fahmayaa ciil baan iska hambiyay buu halka aan maraya walinka Nabi Maxamed wax ka sheegay islaamkii wax ka sheegay waxa iga daran buu yiri isagu ha iska qaloocsanaadee masaakiinta uu ku akhriyo beenta u sheegay fadhigii baan ka kacay buu gurigii aan deganaa baan tagay buu islaamtii guriga aan deganaa lahayd ayaa ila lecture-ka dhageysanaysay سلام كانوا كورين waxay igu tiri war diinba ma haysataane diintiini maanta laga sheekaysanay soo kii doctor Robley wixii aad ka sheekaynayay ah way iga sii dartay buu qolkii ban galay buu habeenkii ma seexan buu murugo lama seexan buu habeenkii abadan waxaan bilaabay inaan dictionary-da soo qaato waxa laala wixii dictionary-ga garanayay inaan soo qaato jawaabtii horta af Carabi ku qoray buu waan ku ciil baxay buu afkaygu horta محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يدي ما قرتي بيو انت ان قرتي با افجر ما لو ترجمي بيو oo waxaan kala soo baxay dictionary-da islaamtii imika ila deganeen xaafada iyo saysay ayaan inta u geeyay ma ku iga saxbal afkiina iga sax inta yar marxalad hore xariiqaye markaas ay toosisay buu aroortii intaan tagay ban journalkii ugu weynaa wadanka ayaa ku ori jawaabtii Dr. Robley ayaan ka jawaabayay been way shalay wuxuu sheegay hal la ii dhajiyo waa la ii soo dhajiyay journalkii baa la iigu soo qoray buu jawaabtaydii aan ugu hiilinayay sallallahu alayhi wa sallam iyo islaamka maalintaas aan ogaaday buu in islaamka baahi loo qabo dadka kale afkooda wax loogu sheego dadkuna ay qalad islaamka ay ka aaminsan yihiin maxaan bilaabay buu journal baan ku curiyay journal la yiraahdo tabliiqi islaami waa laba mujallad waa laba warqadood tan iyo labadeed ana qorqoro buu usbuuci maalin baan soo saaraa buu yiri inta qof aan garanayo internet ma jirin email ma jirin Facebook ma jirin Twitter ma jirin Instagram ma jirin maxaa jiray bariga post bariidkii la qaadi jiray post iyo guriga loogu ridi jiray warqadaha in allaala inta qof aan garanayo buu yiri ayaa bilaabay buu inaan ugu rido guryahooda islaamkaana uga sheekeynaya maalin baa ayad baan fasira xadiis baan fasira saxaabi baa ka sheekeeyaa buu intayda taagtayda ninkaas sheekada muxuu waday 56 sano 56 sano ayuu waday Muhammad Tawfiiq ibn Ahmed wuxuu go'ay isagoo ay gacantiisa ku soo muslimeen bacd Allah ilaahay kadib 4000 oo qof oo Yurubiyan ah ayaa gacanta Muhammad ibn Tawfiiq ku soo muslimay rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ya yaqaana ma qashay Muhammad ibn Tawfiiq hore liyo hebel baan ku badciyaaray heblayaa heestaan idinka sheekay hasbi okay
نبقى قري كتاب محمد ابن توفيق ابن أحمد رجل أمة للأكعي أيها محمد بن ويدي dadka mamar un baa warqad u diri jirtay mise waa daba joogi jirtay kama hari jirin toddobaad walba waa diraabiir kii kuugu degdega badnaaya soo muslimay baa leeyahay imisuu ku soo muslimay 2 bilood shahray ayuu ilaahay hanuunka ugu qabtay kii kuugu badnaana 17 sano usbuuc walba warqad u diray yaa dhalinyaro حسبي الله يا شباب 17 سنه يعني سبت إلى دافع جربوا أدر كلمة إلهي جارسي بلغ عني ولو آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتلك الدين إلهي جارسي يا أبو إلهي الله سبحانه وتعالى تضبي يتبصرنا أيام نجرب لدى تاجنا بيوفي نكون دم تاجنا ونحن نقول مركز دم أستاذ بروفيسور كدقة جامعة فاتيكان isagoo muslina ay baxtaan ninkii uu muslimay ina buu dhalay inankiisina ninkii dalaadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo muslimiyay ayuu magaciisi u bixiyay maxaan uga socdaa athabaat waxaad qabanaysaa wad ha googoynid ha jarjarin ninkaasba intaas u waday miyuu daalay yaa yaqaan maanta maxamed tawfiq ilaahay baa yaqaan allah yaarifu xuku fal maxamed tawfiq al-misbah galan wa xuku fal ha ما أنت عمر بن الخطاب لفرنا يقادسية ها ماشان إيراني مكان اللي يهي يا عراقي مركي لفرنا هي أيا مركي لو كان سيدنا عمر قوشي لو كان اللي يري وين يقول يسنا وين فرنا نقولكي أيا عمر جه هوس حرسنا يا لو كان عسكري كان بيقول ورياه إمسحي نقدر ننتهي نقدر نقاس يقول هبل مقعد بوتري أنت إنك شهيد ده markaasuu yiri iyo dad kale oo garanayeen Umar waadi oo caamatu muslimiin ah Umar waa ooyay maxay ku falay buu yiri Umar inaanu garanayeen Ilaahay baa garanaya maxaa uu yasaabu yiri Allah leeyahay Umar waadi uu garanayay Allah yaarifu min fawq 7 samaawaat Ilaahay baa garanaya subhanahu wa ta'ala idan al-himmatu al-ulya ko labo waxa aad bilowdo waxyaabaha inaga in lagu yaqaano waliba Soomaali dadaal حفظي أقول جعيل وين لنا هل الرب نقدم لك ومحي بود صبر ملهين حيري سالفضوضة حيري لك والهيسا صبح والهيسا سالفضوضة أبوي وحيابها إن لم يقام مدي أرون نغيما لك موريتانيا ودريان سيدي سنوجوغا هلكا وذات سيغاشن جيران كل هوس فريسو دينتا إلهي كسور بره هاي جامعة ذينا هل كهوس في الدماغ شيخي ما مكا وزي زيارته شيخي ما أقول إيش رأيك بالصوماليين مكا سوف يقول لي صومال حفظ جود وافي عيه دلال كود وافي عيه سيدو كل جوجو أيوم بالغورنا يقول ضعف سيدو كل جوجو بالغورنا يقول تجي ما يصبر بس صبر يا نو فريسو كريم يسد مكا سي أيوم راد وقتنا محينا نجربه حصلي وحين بلونا إننا نكهرين أي نكجون كامل قلوب كسدحات هم سرع سقناشة يا صبر نوش هذا الراد وقتكتيد محيري التفاؤل والثقة كنسولي وأنا لابت هذا كبر ذا فعل وناكسد إن شاء الله وهجاي ديراد ما في عنا حنا هينا حاولت كيانا ودك ما قوم تعالى وحنا مجامعة ها وحاكبح عاود حاكبح وحاس حاكبح انت هلك تعالى مركز ويليسيد aad koobtid ayaad raadinaysaa inta ka maqan marka laga sheekeynayo rihlatul ulama culimadu markay culumta raadsan jireen sharti baa u yaalaba aslanba ma dhoofi kartid baa lagu ilaa magaalada aad joogtid aqoonta taala aad horta koobsatid marka tiraayid hargeysa iyo agagaarkeeda wixii yaalay waan hayaa ayaa maxaad leedahay waxaan u baahanahay inaan meel ka durugsan in aan tago ha degdegin adiguna laqad kaana nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu busta huwan oo kacbada hadsanaya ayuu khabaar ibn arati u soo galay oo la soo ciqaabo la soo dilay markaasuu nabigu ku qeylay rasuul allah ilaahay ma noo barid waana la dilay
أنا العذاب قريش بان نفط نوكينتي ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا إلهي أو قوشي سياو قرمت كيله ما قصوا النبي حديث كيري صلى الله عليه وسلم أركان ابن الخباب بن عوف أنتوا النبي بسطيس كذا صلى الله عليه وسلم لو مسكين رسول الله مخذيه يا لله الهي بات إلهي تكون فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها مطر السم إنك مرمر ميانك وقبلنا ما كنا نقول هذا مسلمين ولا حسوقها هي إدم لها وحكنا دقيستون ما نسورانين إلههم دم كسيس إذا قالوا تقول ما نسورانين صوروا سايب خباب بن عرض نبي يقول صور دول رسول الله بها مركز يوم كالي من خباب لقد كان من قبلكم أمته إذ كهري لا يمشطون مشاط الحديد هذه بكورو يهي من دي أيا هلبك يلا فهود اللي وكلا سافي جري دون عظامه إلا لفت اللي جاري هلبك اللي جوري جري أمته إذ كهري محل عقابة دين تكبر